kubadda cagta Liverpool oo xaqiijisay cid xira doonta lambarka 9 ee kooxdeeda haddaba yaa loo dhiibay Makagbo Nunes mise Diego Jota warbixintan aan saaxiib yeelan kugu soo gudbi doona ee soo dhawaada kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa isbedel ku sameynaysa lambarada ay xiran doonaan ciyaartoydeedu kadib markii ay si xor ah uga baxeen Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita iyo Oxlade-Chamberlain waxaana ka sii horeeyay oo isaguna uu lambarkiisu banaana Sadio Mane oo xil ciyaareedkii tagay oo dhan ayna cidna xirneen lambarkii uu baneeyay xil ciyaareedkii hore lambar 10 balse hadda la siiyay saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool la soo wareegeen ninka la yiraahdo Alex Magalhaes. Darwin Nunes, Cody Gakpo iyo Diego Jota ayaa ku loolamaya lambarada kooxda ee markaasi caanka ah nambarka 9 ee uu baneeyay Roberto Firmino iyo nambarka 8 ee iskaga dambeeyeen Naby Keita iyo Steven Gerrard ayaa markaasi lambarada ugu wanaagsan ee naadiga Liverpool xilli oo isaguna banaan yahay lambarka 7 oo ka baxay wiilka la yiraahdo James Milner. Saddexdan ciyaartoy weerarka ah ee Liverpool markaa u garsoortay waxayna ay sheegtay lambarada ay xiran doonaan xil ciyaareedka soo aadan iyadoo hadda la ogaaday mid ka xiran doona nambarka 9 ee kooxda kubadda cagta Liverpool. inkastoo aan wali Liverpool si rasmi ah u shaacin haddana waxaa la ogaaday in naadiga Liverpool ee Darwin Nunes ku wareejisay nambarka 9 oo noqon doono xidiga xabaaraya mas'uuliyadda culus ee dhinaca guulasha. Weeraryahanka reer Uruguay ee Liverpool xagga hore 85 milyan oo gini ku soo iibsatay waxa uu xil ciyaareedkii taga dhaliyay 15 gool oo kaliya isagoo xirnaa maaliyadda nambarka 27aad ee uu hadda iska bedelayo. waxa uu hadda raaci doonaa raadka xidiga reer Brazil Roberto Firmino iyo Fernando Torres oo ahaa ciyaartoydii ugu fiicneed ee 20kii sanadii ugu dambeeyay xirtay lambarkani waxayna taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ku duceysanayaan in si wanaagsan uu ka helo lambarka 9. Cody Gakpo oo xulka qarankiisa Netherlands u xirtay nambarka 8 ayay u badan tahay in lagu wareeji doono nambarka 8 halka Diego Jota oo kala dooran doono inuu sii haysto nambarka 20aad iyo inuu u guuro lambarka 7 ee uu baneeyay ninka la yiraahdo James Milner. inkastoo aan meesha laga saari karin wiilka Colombiyaanka ah ee Luis Diaz oo asagan u baahan in lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Liverpool uu gacanta ku dhigo. naadiga la yiraahdo Reds-ka ayaana saddexdan ciyaartoy waxaa la ogaan doonaa sida markaasi ee lambaradan u kala xiran doonaan marka la gaaro bilowga xil ciyaareedka ku soo aadan. haddaba adiga xidigay ay kula tahay in loo dhiibi doono lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Liverpool maadaama labada lambar oo kala la qoondeeyay waad ku maasan tahay daawashada la jaanqaadkaaga. haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadkana qaybta hoose ee kommentiga aragtida nagu wadaag. macmiil ku soo dhawow shirkadda Al-Fajri Herbal oo idinka saliidda loo yaqaan S15 iyo shaambada anti-hair loss waa laba shay oo ka daaweynaya xanuunada ku dhaca timaha sida jajabka, siisiibka, bixil la'aanta waxayna timaha ku siyaadinaysaa madmadow, dhalaal iyo dheerayn muddo 15 cisho gudahooda insha Allah. weliba waxaa intaasi u dheer daaweynta xanuunada ku dhaca madaxa sida cambaarta iyo xanuunka oo saliidda S15 iyo shaambada anti-hair loss ay ka caawin doonaan. ballanteenu waa inaad hore u soo gaadho Al-Fajri Herbal oo markasta idin keenta waxyaabo dabiici ah oo u wanaagsan naftaada.